kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida dacalada ka joogtaan halkan waa Rugta TV oo aad nagala socotaan alaaba maanta waxaanu ka hadlaynaa barnaamij ku saabsan fanaanka caanka ah ee Bayrof oo gabi ahaanba maalmihii ugu dambeysay ku xidhnaa magaalada Hargeysa halkaasi oo muddo 2 toddobaad ama toddobaad ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa waxaa la sheegay fanaanka in lagu haysto mukhaadaraad ay lagu qabtay kuwaas oo ay ku qabteen ciidanka booliiska magaalada Hargeysa waxaa la sheegayaa fanaanka inuu hadda ku xidhan yahay saldhig ka mid ah saldhigyada magaalada Hargeysa halkaasi oo in muddo ah uu ku xidhnaa xaaladiisuna ay tahay mid aan hadda la ogeyn si kastaba ha ahaatee fanaanka ayaa waxaa baraha bulshada laga waayay dhowaan taas oo mar la sheegay inuu fanaanka xidhan yahay laakiinse fanaanka ayaan la ogaanin sababaha lagu xidhay iyo meesha uu ku xidhay iyo xilliga la xidhay wararka soo baxaya oo aanu ka helino fanaanka ayaa sheegaya in fanaanka laga yaabo xitaa in uu mutaysto in maxkamad lasoo taago sida dadka agdhow ay noo sheegeen waxaa kaloo fanaanka waxyaabaha aadka ah lagu haysta mukhaadaraad faraha kula jiray taas oo gabi ahaanba lagu soo qabtay mukhaadaraadka haddii shakhsiga lagu soo qabto ama faldambiyeed kale qaybtiisa waxay noqonaysaa qof in la xidho dibna maxkamad la mariyo taasina waa ta keeni doontaa in fanaanka caanka ah ee Bayrof la xidho fanaankan waa fanaan reer Hargeysa badanna fanka kusoo jiray waxa uu ku jiray kooxda xidigaha geeska kaas oo heeso kala duwan soo qaaday waxa uu sidoo kale fanaanku maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada kula wadaagaya asxaabtiisa sawirro iyo muuqaalo laakiinse hadda la waayay wax wadaagisa uu asxaabta kula wadaagana ma jirto xarigiisana waa mid hadda sii dheeraaday oo laakiinse aan dadku badankooda ka warhaynin xoogahaanu soo helnay ayaa ah in fanaankaasi uu hadda xidhan yahay oo uu ku xidhan yahay saldhig ka mid ah saldhigyada Hargeysa waxaanan ogsoonahay in dhowaanahan ay iska badatay in fanaaniinta xabsiga loo taxaabo oo la xidho si kastaba ha ahaatee fanaan kale oo Soomaaliyeed oo isagana la Khadar Keyow ayaa isagana waxaa la soo sheegay in uu dhowaanahan ku xidhnaa wadanka Itoobiya gaar ahaan Addis Ababa halkaasi oo laamaha ammaanka ee immigration-ka ama kuwa dambi baarista ay ku qabteen halkaas iyo Addis Ababa saldhig ku yaala saldhigyada Addis Ababa ku xidhan waana fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow sidoo kale fanaankan caanka ah ee Bayrof ayaan isaga la hadal haynin oo baraha bulshada aan laga hadal haynin waxaana u muuqata fanaankan in gabi ahaanba la iloobay fanaaniinta ka waaweyn ee ka magaca sareeya aad loo xuso kastaba ha ahaatee fanaan Bayrof ayaa waxa uu yahay wiil dhalinyaro oo kusoo biiray in muddo ahna ku jiray fanka gaar ahaan wiilkaas ayaa kasoo shaabaxay magaalada Hargeysa halkaasi oo fankiisa ka ambaqaaday sidoo kale fanaanka ayaa wuxuu soo qaaday heeso kala duwan oo jacayl iskugu jira dadka aadka u taageera fanaanka ayaa ka xumaaday xariga lagu geystay magaalada Hargeysa fanaanka ayaa in muddo ah ku xidhan Hargeysa halkaasi oo aanay ciidaba ka warhayn sidoo kale fanaaniinta xidigaha geeska ayaan wax warbixin ah ka soo saarin wax fanaan oo u tagay oo xitaa ka ag wareegana ma jirin ilaa hadda waxa ku ceebeysan waa fanaaniinta Hargeysa gaar ahaan kuwa xidigaha geeska kuwaas oo aan haba yaraatay wiilkaasi u tagan oo aan soo eegin xaaladiisana aan ka soo waramin waxaana fanaankaasi haddii aad ka warhaysaan wax ku saabsan arrimihiisa iyo xarigiisa fadlan xagga hoose commentiga naga soo bixiya oo qoraal noo soo qora waxaan gaarsiin doonaa shakhsiyaadka gaarka ah ee fanaanka ku xidhan iyo sidii fanaanka loo soo dayn lahaa waxaanan u guurgali doonaa in fanaanka gabi ahaanba uu xorriyadiisa helo oo aanu ka qayb qaadano si aan annagana u baahino waa in fanaanka loo kaca oo sidoo kale la soo daaya Hargeysa maalmihii ugu dambeysay waxaa la xidhayay siyaasiyiin iyo fanaaniin kuwaasoo xukuumadda ka soo horjeesaday si kastaba ha ahaatee isaga waxa uu kaga duwan yahay waxaa la sheegay in faldambiyeed mukhaadaraad ah uu faraha kula jiray taasina ay ciidanka ku xidheen oo gabi ahaanba xabsiga ay u taxaabeen xaaladda taasina ay tahay mid runtii iska adag waxaana noqon doontaa in fanaanka loo gurmado oo xukuumadda Somaliland gaar ahaan ciidanka booliiska lagala hadlo oo sidii xaaladiisa loo dhammayn lahaa oo sidoo kale fanaaniinta kale ee Hargeysana waa inay ka hadlaan oo ay ka waramaan haddii ay ka warhayaan
laakiinse haddii aanay ka warhaynina waa in xitaa ay weydiiyaan shakhsiyaadka gaarka ah ee aadka uga agdhow. Waad ku mahadsantihiin daawashada channelkiina. Fadlan sii share gareeya oo asxaabtiina la sii wadaaga.